fariimihii Twitterka oo wakiilka dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku dhahayeen dadka haysta dhalashada oo Mareykanka iyo Ingiriiska oo musuqmaasuq ka geysta Soomaaliya aniga saan isleeyahay sharci ahaan horta aad ay sharci ahaan awood ay u leeyihiin in ay ku qaadaan dadka dhalashadooda haysta markuu dalkan ku soo noqdo qofkii in lala xisaabtamo oo haduu laaluush bixiyay ama qaatay in maxkamad lagu soo saaro waa sharci ahaan awood ay u leeyihiin laakiin maadaama oo cadayn adag la rabo maadaama oo la rabo in la cadeeyo qofkan uu dambigan galay sidaan ognahana Soomaaliya hadal ma ahana dadku ayna si cad hadda wixii u sameeynaynin oo qarsoodi iyo qaab kale u farsamaystaan ma u maleynay ujeedadu inay ahayd maxkamad ama idin geynayna ama dambi ba idin ku qaadayna laakiin ujeedadu waxay ahayd in hanjabaad ama dadkan oo dhalashada haysta ama maamul goboleedyada madaxda ka ah ama xildhibaanada ah in ama la xusuusiyo ama dan laga lahaa oo ay ka dhig adeegeen la rabo oo la xusuusiyo oo lagu adkeeyo marka dhalasho kala haysato macnaha sharci kale oo dal kale ayaa ku qabanaya hadda tusaale ahaan qofkii dhalasho Soomaaliya bis haysta oo Soomaali ah oo Soomaaliya dhex jooga waxa laga yaabaa dambiyada qaar ama waxyaalaha qaar uu Soomaaliya ku sameeynayo oo hadayna dambi caalami ah oo maxkamada caalami qaadi kara ahayn inaan wadan kale soo faragelin karin laakiin adiga marka aad dhalasho wadan kale haysato wax kasta oo sameeyso su'aalo ayaa laga weydiin karaa sharci kale ayaa ku qabanaya macna marka adiga hadaad xataa samaysid dan aad u aragto danta Soomaaliya inay tahay laakiin ka hor imaanaysa wadanka aad dhalashadiisa haysato macnaha cadaadis ayaa lagu saari karaa sababtoo wadanka dhalashadiisa ayaa haysata waa lagu handadi karaa macna waa arin marka oo waxyaalo fara badan la socdaan hadda ahaan in Soomaaliya shidaal fara badan ayaa la sheegay inuu ku jiro wadamo fara badan ayaa danaynaya shirkadii oo Ingiriiska waa heshiiska galeysay hadii marka aad haysato dhalasho tusaale ahaan wadankan ama wadan kale oo dan kale Soomaaliya waxa laga yaabaa in iyadoo dantii Soomaaliya ay mid wadan kale uga fiican yahay ama shirkad kale u fiican tahay in lagu cadaadiyo iyadoo lagu isticmaalayo maadaama adiga meeshan deganeed dana kale ka yaalaan laga yaabo caruurtaada inay joogto oo rajo ah ka qabto inaad ku soo noqotid in lagu isticmaali karo arinkaas ina dantii Soomaaliya kaliya aadan fiirin laakiin dhinaca kale u jeesatid markii la fiirsho dagaaladii Sokeeye markii Soomaaliya ka dhaceen Soomaali aad u fara badan oo malaayiin ah ayaa dibadda dalka uga baxday oo waliba dadka xirfadaha lahaa dad kale fara badan dibadaha ay wax ku barteen dadkiina inta badan dhalashooyin wadamo kale ay qaateen macna markii horta dadka oo dhalashada kala haysta dhamaantood arinkii banaanka ka joogeen way adkaanaysaa laakiin aniga waxaan isleeyahay jagooyinka sarsare hadda tusaale ahaan sirdoonka qaranka qofka loo dhiibayo kale taliyaha ciidamada saddexda jago kale ugu sareysa meel hay'adaha halbowlaha u ah dowladnimada Soomaaliya iyo dan ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed waa in Soomaalidu ka doodo oo dastuurka ama la bedelo ama xeerarka kale lagu daro in hadii jagadaas lagu doorto ama lagu magacaabo in uu qofkaas ka tanaasulo dhalashada kale uu haysto si ay macquul u noqoto in uu danta oo Soomaalida oo loogu tala galay oo laga filay inuu ilaaliyo uu faaruq u noqdo oo uu ilaaliyo ma ka heshaa barnaamijyada Dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer Dalsoor waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii deeqdaada sidan aad u bixin kartaa